Sheekada kabatolihii xariifka ahaa. Kabatolahan waxa uu shaqadiisa ka soo rawaxay isaga oo lacag wataa, dameerkiisana wataa. Kadib intii uu dariiqa ku soo jiray ayaa waxa uu arkay nin tuug ah. Aadna waa uu baqay. Waxa uuna ka baqay inuu lacagta ka qaato. Kadib fikrad cajiib ah ayaa ku soo dhacday. Waxa uuna go'aansaday inuu lacagta qoorta dameerka u geliyo. Tuugii markii uu wax lacaga ka waayay ayaa uu doonay inuu dameerka ka qaado. Kabatolihiina waa uu beriyey. Wax uu baryaba markii dambe ayaa uu dameer kiciyey. Lacagtiina waa ay ka soo dhacday. Tuugiina waxa uu maleeyay inuu dameerku lacag samaynayo. Waxaana uu kabatolihii ka codsaday inuu dameerka ka iibiyo. Kabatolihiina waa uu ka aqbalay. Kabatolihii waxa uu gurigiisii ku noqday isagoo lacag badan wataa. Halka ninkii tuug ahaana uu gurigiisii ku noqday isaga oo dameer wataa. Kadib markii uu tuugii gurigiisii tegay ayaa uu habeenkii oo dhan waxa uu sugayay inuu dameerku mar uun lacag sameeyo. Wax lacag ahna waa uu ka waayay. Subaxnimadii isagoo aad u xanaaqsan ayaa waxa uu go'aansaday inuu ka doonto ninkii lacagta ku khiyaameeyey. Kadibna waxa uu ogaa ninkan kabatolaha ahi inuu ninkani mar uun imanayo gurigiisa si uu uga soo ceshado lacagtiisa. Waxa uuna islaantiisii ku yidhi waxaan tagayaa beerta haddii aad aragto cid i doondoonaysa waxaad ii soo dirtaa ayga. Islaantiina waxay ku tiri waayahay. Kadib waxaa yimid ninkii tuugga ahaa oo doondoonaya ninkii kabatolaha ahaa ee khiyaameeyey. Ayaa islaantii markii uu ninkii u yimid ayay aygii u dirtay oo waxay ku tiri orod u yeedh. In yar kadib waxaa la arkay ninkii iyo aygii oo wada socda. Kadib tuuggii ayaa aad u yaabay. Waxaana uu damcay inuu aygan ka iibsado. Aygan wax kasta fahmaya. Kadib ninkiina waa uu ka iibiyey aygii. Tuuggii ayaa maalintii dambe xaafadiisii ku sii ballamiyey inuu suuqa tagayo haddii ay arkaan cid doondoonaysa ay ayga u soo diraan si uu ugu yeedho. Kadib ninka saaxiibadii ayaa guriga yimiday. Waxaana islaantii aygii u dirtay ninkeedii. Aygiina halkii loo diray ma uu teginay. Waxa uu si toosa u tegay gurigii kabatolaha. Kadib ninkii oo aad u cadhaysan ayaa waxa uu gartay in kanna lagu khiyaameeyey. Waxaanu go'aansaday inuu ka aargoosto ninka khiyaameeyey. Waxaana uu yeedhay saaxiibadii. Waxa ayna tegeen gurigii kabatolaha. Laakiin markan uma socdaan inay wax ka iibsadaan laakiin waxay u socdaan inay ninka soo dilaan oo ay kaga takhallusaan. Ninkii kabatolaha ahna waxay isku dayeen inay jawaan ku ridaan. Jawaankiina waa ay ku rideen. Markii ay jawaankii ku rideen ayaa waxay go'aansadeen inay webiga ku ridaan si aan meydkiisa loo helin. Jawaankiina waa ay ku rideen waana ay qaateen. Markii ay dhexda marayaan ayaa waxa qabatay lulo. Waxayna is yiraahdeen yar seexda xoogaa. Markii ay seexdeen oo ninkiina iska dhigeen ayaa waxa wadada soo maray nin socoto ah oo sita hanti badan. Waxa uuna ninkii kabatolaha ahaa uu ku fikiray inuu ninkan la hadlo. Waxa uuna yidhi ibadbaadi. Ninkiina waa uu ku soo leexday. Waxa uuna ku yidhi maxaa meesha ugu riday. Markaasuu ku yidhi waxaan ahaa boqor. Tuuladaydiina waan ka soo baxsaday. Waxaana rabaa inaan ku noolaado nolol caadi ah. Dib ninkii waxa uu la yaabay hadalkiisa. Waxa uuna go'aansaday inuu isagu jawaanka isku rido. Ninkii kabatolaha ahaana waxa uu bilaabay inuu ninkii jawaanka u bedelo. Ninkiina jawaankii ayaa uu ku riday. Kadib raggii markii ay soo kaceen ayaa ay ninkii qaadeen. Kadib waxaa dhacday inay ninkii miskiinka ahaa ee socotada ahaa ay ku ridaan webiga iyagoo moodaya ninkii kabatolaha ahaa ee ay markii hore siteen. Kadib in yar kadib waxaa dhacday inuu ninkii kabatolaha ahaa uu iyaga u yimaado isagoo sita hanti badan. Iyaguna waa ay yaabeen oo waxay yiraahdeen waa idinkii webiga ku riday xaggee ayuu ka yimid. Kadib waxa uu sheegay inuu hantidan ka soo qaatay webiga dhexdiisa. Iyaguna iyagoo xamaasad qaaday ayay yiraahdeen idinkuna aad ka soo heshaan webiga hanti badan. Waxayna ninkii ka codsadeen inuu jawaan ku rido si ay iyaguna u soo helaan hanti badan. Ninkiina waa uu ka yeelay inta uu
iyagii oo dhan uu jawaan ku riday ayaa uu webiga raaciyey. Markii uu webiga raaciyey ayaa isagu waxa uu gurigiisii ku soo noqday isaga oo sitaa hanti badan oo faraxsan. Fadlan subscribe saar channelka haddii aad ku cusub tahay.